waxaan ku faraxsanahay maanta inaan idin soo booqdo maalintii ugu dambeysay oo imtixaankii ugu dambeeyay aad qaadanaysaan Soomaa waxaan idin rajaynayaa imtixaanka qof walba halkan fadhiya inuu keeno buundada ugu fiican waxbarashadu waa qofka noloshiisa waa indhaha qofka waa iftiinka bini aadanka waa horumarka qofka bini aadanka ah waa fahamteen Soomaa waxbarasho qof aan waxbarasho lahayn horumarkiisu waa kooban yahay marka waxaan rajaynayaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo iskuul sare inaad tagtaan oo aad baastaan oo buunta fiican keentaan iskuul sarena aad jaamacada ka aadaan jaamacadaha markaa dhamaysaanna aad tihiin mustaqbalka dalkan uu leeyahay maxaa yeelay mustaqbalka dalkan waa idinka shaqooyin wanaagsan qofkii dawladda u shaqeeya qofkii private u shaqeeya qof walba inuu leeyahay door cayiman oo wanaagsan uu nolosha shacabka nolosha dalka iyo horumarka dalka wax ugu kordhinayo annagana muhiimad weyn ayay noo tahay muhiimad weyn ayay noo leedahay ahmiyad weyn ayay noo leedahay inaan idin siino waxbarasho tayo leh maxaa yeelay waxbarashadu waxa weeye waa aasaaska qofka bini aadanka ah marka hooyo walbaba iyo aabbo walbaba inaysan marna ka walwalin waxbarashada caruurtooda insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo qof walba oo Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo maxaan ku raahdaa daadiina kala waa inuu iskool aado waa inuu iskool u kalaho waa inuu qalin buug qaato waa inuu wax barto sharaf weyn oo noota aad iyo aad waxaan sharaf weyn inoo ah inaan ku faraxno madaxweynaha Soomaaliya inuu noogu yimid iskoolkeena wuxuu nagu dadaamay inaan waxbarashada si fiican u sii wadayno inuu si garab galay waxbarashada laakiin soo soo boqday iskoolka nagu soo boqday wuxuu yiri waxbarashada ku dadaala anagana waxaan isku dayaynaa inaan waxbarashada ku dadaalno oo heerku aad joo inaa hadhoota anaga soo gaarno insha Allah maanta waxaan imaado madaxweynaha dalka Soomaaliya ku faraxsanahay inuu imaado iskoolka waxaan ugu imaado iskoolkeena wiilwaal waan ku faraxsanahay maanta anaga imtixaanka noo dhamaanaya meeshan halkaan ay imtixaanka noo dhamaanaba waan ku faraxsanahay sida darteed madaxweynaha wuxuu dhahay meeshan maanta imtixaanka noo ma waan soo booqanay alxamdulillah iskuulka kaliya oo soo booqdo waa iskuulka